ma jeceshahay ganacsi online ah oo weliba dharka khaasatan fanaanadaha la dhisaan gareeyo inaad ka ganacsato weliba adigoo qarashna kaaga bixin. Haddaba maanta muuqaalkeena ayaan intaasi kaga bogan doonaa. Kahor intaanan gelin ka hor waxaa muhiim ah inaad ogaatid waxaa jira laba nooc oo website-yada qaabka looga ganacsada ah fanaanadaha iyo agab kaleeto ee la print gareeyo. waxay kala yihiin mid waa inaad adiga dhisaan gareysaa, naqshadaysaa, kadibna xayeysiin u samaysaa, kadibna dadka markaas ay iibsadaan. Shirkadda marka website iskale iyadu waxa kaliya ay sameynaysa waxay tahay inay daabacdo fanaanadihii, ay printer gareyso, ay soo saarto, ka dambana ay iib geyso. markii la iibsadana adigana qaybtaada aad ka qaadato, ayaguna qaybtooda ay ka qaataan. kaas marka wuxuu isugu jiraa inaad dhisaan gareyso iyo inaad adigu xayeysiin u samaysato. nooca labaad wuxuu yahay waad dhisaan gareyna laakiin waxayeysiina adiga uma sameynaysid, dushaada ma saarno. waxaa sameynaya oo keliya kambaniga daabacayo ayaa xayeysiinayo. howshiisa waxaa ka mid ah inuu daabaco, inuu iib geeyo, markuu iibiyana inuu adiga markaa qaybtaadii uu ku siiyo, uu kusoo ogeysiiyo, akawnkaaga uu kusoo shubo. qaybta ugu dambeysee ah midda aan xayeysiinta lagaa rabin dib ayaan u dhiganaynaa. waxayna tahay waxaa sameeya kambaniga weyn ee loo yaqaano Amazon. waana shabakada online ah ee ugu weyn ee si online ah wax looga iibsado ama wax loogu gado. saa daraadeed maanta waxaan ku hormaraa mid fudud ee ah design-ka inaad adiga samaysid, ka dambana aad adiga xayeysiisid. waxaa xayeysiinta ku sameyn kartaa dhowr siyaabood, ama social mediaha amaba siyaabo kaleeto, laakiin waxa ugu muhiimsan oo lagu sameeya waxay tahay waa social media ayaa loo adeegsadaa. xayeysiinta ayaduna ma geli doono, laakiin maanta muuqaalka waxaa rabaa inaan uga hadlo qaabka loo sameeyo fanaanadahaas, halkee laga sameeyaa. intaas inaan uga hadlo ayaa rabaa mawduuca. website-kaas sidaa ku aragna marka sida hadda aragtaan, website-kan waa Teespring. wuxuu naqshadeeyaa fanaanadaha iyo agabyada kaleeto. waxaa markaa adiga qaabka loo sameynayo waa marka hore inaad is register gareysaa, amaba gmailkaaga ama facebookkaaga si toos ah ugu gasho. halkaas daad login aad tiraahdo waxaa imaanaysaa ama emailkaaga si toos ah ama gmailka ayaad ku galaysaa google. waxaa imaanay marka website-ka waxaa leenahay marka start designing. halkaas ayaa ka bilaabaysaa marka. sida aragna marka agabyadan kala gedisan oo dhan ayuu naqshadeeyaa oona lagu iibiyaa. ayaad ka faa'iideysan kartaa marintaana shay iPhone caseska oo noocaa rabto aad u sameyn kartid. naqshada fanaanadaha, garamada, sigsaanta, kuwaan oo dhan meeshadii kaga muuqda koobabka, kuwaan oo dhan waa lagu sameyn karaa. marka tusaale waxaan usoo qaadanaya marka fanaanada markii aan galno wuxuu ku siinaa marka laba shay. waxaa rabtaa inaad iibsato, adigaa dhisaan gareynayso, waxaa rabtaa ku qoran, kadibna waa iibsanaya. adigaa samaysanaya kadibna waa iibsanaya, ama waad sameynaya kadibna waad iibinaysaa. halkaa markaa imaano marka fanaanadii cad ah ayuu ku siinayaa oo naqshada. fanaanadaas cadda ah halkaas ayaa waxaa uga baahan tahay inaad naqshad la imaato oo aa saarto. fanaanada kalarkeedana waa bedelan kartaa. haddaan marka kalaradan kusoo darsado kalar cad, kalar madow, kalar buluug ah, kalar green. marka intaan haddii aan kusoo daro oo fanaanadahaas naqshadooda aan rabo inaan sameeyo kalaradii ayaan doortay. okay, halkaas hoose waxaan riixayaa marka dhan noo dhamaatay. waxaan gelinayaa marka haddii qoraal aan rabo inaan kusoo daro ama sawir, hadba kii aan doono. waxaan rabaa marka aan kusoo daraa sawir yar, add image. wuxuu kula tagaa computerka, waa inuu sawir kuu diyaarsan ahaadaa. halkaas markaa imaano waxaan qaadanaa marka sawirkan aan hore usoo diyaarsaday. wuxuu ii keenay sawirkii. waa yareyn karaa
sida aragtaan waan weyneyn karaa, waan wareejin karaa, waan qaadi karaa, meeshaan doonaan dhigi karaa horay, qaybta kor, dhexda ama hoos, waana tirtiri karaa haddii aan u baahnin. Halkaas ayaan ku dhufanayaa oo tirtirayaa. Marka haddii aan iraahdo dhexdaas halkaas haddii aan dhigno, kadaba haddana qoraal ayaan kusoo daraynaa. qoraalka koowaad waxaan leenahay tusaale hello. marka intaas qoro waan ka bedeli karaa, hal mar aan wada dhaqshadeyn doonaa qoraalka. text kale aan kusoo darsado, text kale hoosaan keenay, isagana waxaan ku qorayaa summer. kan aan kalarkii oo farta nooceeda aan ka bedelo, fartaas haddii aan qaato, kaas haddii aan iraahdo isu weyneeyo, kalarkeeda waa midabkan gaduudkaan qaadano, ka kalaha u imaana isagana aan naqshadeyno, farta nooceeda aan bedelo, nooc kale aan ka dhigi karaa haddii aan doono. kan aan ka dhigay, ka dambe waxaan bedelaa yellow, dhar midabka jaallahan siiye, ka dambe xoogaa aan weyneeyo. fikirka waa fahamteena umaleyna. halkaas markii aan sameeyo, waxaan hadda keensaday qoraal, waxaan keensaday sawir, fanaanadii meesha loogu talagalay calaamadaas ka muuqato, dhibcahaas yaryar ee gaduudan ayaa loogu talagalay inaan ku samaysid. waana printable area. halkaas hadaa iida saarto wuxuu ku tusaa waa qaybta la daabacayo. marka haddii aad ka baxdo dhow sawirka qalad uu kaa noqonaa. hadaad dilimahaas dad gaduudana lagu siiyo haddii aad ka baxdo, hadhowda fanaanada si qaldan ayay usoo daabacmaysaa. kalaradii aan soo doornay mid kamid aan ku fiiriyo marka qaabka uu usoo baxaayo. madowga, dhar madowga badana aad loo gataa fanaanadaha, waayo naqshad walba kalar walba way kusoo baxaan. aad waa marka cadaankana wuxuu noqday sidaas. kan haddii aan ku daayo markaa dhowdi, halkaas markii aan sameeyo oo aad ku qanacdo naqshadaadii iyo fanaanadii iyo qaabkeedii iyo kalarkeedii wixii markii aad doorato, qiimaha inaad wax ka bedesho. halkaan qiimaha adaa dooranaysid oo la iibinayo, kadibna wuxuu ku siinaa oo ku xisaabinaa faa'iidada aad ka heli lahayd mid walba. hadda 21.99 haddii aan gado, waxaan ka helayaa 11 euro iyo 77 senti. haddaan ka bedelo markaan iraahdo 19.50 cent, isagana waxaan ka helaa marka 9. waa wanaagsan tahay, bilow fiican. marka intaas raadid, waxaan leenahay marka continue, waxaan leenahay marka continue. wuxuu keenaa marka alaabadii kale naqshada ani aan sameeyey kulli wuxuu u qaybinaa intii kale dhan productiisa ugu soo baxayaan. marka halkaan aan aragno marka fanaanadii qaabkii wixii oo dhan ayuu soo dhigo inta la iibinayo. kadibna waxaan leenahay continue. waxaan ku dari karnaa marka title ayaa siinaysaa, tusaale ahaan hello summer t-shirt. markaan halkaa imaano, ciwaankaasaan ku qoran, kadibna description yar, faahfaahin yar aad ka bixinaysaa. inta kale marka wuxuu ku siiyey marka url waxaa waaye waa website, linkigiisa ama ciwaan address internet waaye. haddii aad linkigaas lagu siiyo oo uu qof click soo siiyo, wuxuu keenayaa dukaanka aad ku leedahay isla shabakadaas, halkaasna wax uu ka iibsanayo. ka dambana markaas linkaas aad qaadan doontaa oo aad koobiyeynaysaa. kadib waxaad leedahay publishing. markii aad dhamayso dabcan kuwan oo dhan aad description ka buuxiso, intaan dhan aad doorato, ka dambe ayaa waxaad leedahay
publishing maraba hadda inaan publishing yiraahdo waa tusaale videoga tusaale ugu talagalay waxaan filaa inaad fikir ka qaadateen website-kan oo keliya maaha Teespring waxaa jira website kale oo badan ee sameeya isla qaabka kuwan oo kale weliba kasii siyaasan alaabo kale sii sameeya inta muuqaaladan kale kulmi doona waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh